Munaasabadan oo ahayd mid lagu weyneynayay bishii uu dhashay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu qabtay madarasada Iqra ee magaalada Gaalkacyo. Ugu horreyntii qaar ka mid ah culimooyinkii ka soo qayb galay munaasabad ayaa ka sheekeeyay siirada Nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam. waa la weydiiyey waxa la abulaha maxaa ku sugantaa wuxuu yidhi naar baan ku sugana laakiin wuxuu yidhi maalinka isniinta naarta waa laga fududeeyaa biyana fartayda macnaha waa ka dhuuqaa intaasa xoogaa wuxuu yidhi naxariis yar ka haystaa waa laakiin wuxuu yidhi halaag iyo naar ayaan ku suganahay intaas maxaa ku heshay baa liyi intaas lafteeda nicmo weeye waxaan ku helay buu yidhi gabadhii Suwayba la odhan jiray xoreyntii aan xoreeyey iyo amridii aan amray markaas waxa weeye Nabi Maxamed macna inay markaas ay nuujiso oo gabadhaas waxa la yiri adoon bay u ahayd ninkaas way u soo bishaarayso waxa tiri wiil baa la dhalay walaalka Cabdullaahi baa wiil loo dhalay markaas wuxuu yiri xor baa tahay oo soo macna wiilkaas soo nuuji ugu farxin marka Nabi Ilaahay inuu yahay oo hada waxa weeye wuxuu u farxa kaliya wiil oo markaas qaraabadiisa loo dhalay Cabdullaahi oo walaalkiisa loo dhalay inuu yahay ayuu ugu farxay kaliya nabi ahaan hadduu ugu farxo markii uu rasuulka laga dhigay rumayn lahaa ninkaas marka waxa weeye wuxuu ku helay in maalinka isniinta cadaabka laga fuday biyana farta uu ka dhuuqo waxa lagu helay wuxuu macnaha ku helay waxa weeye waa farx yarka ah oo ku farxay habeenkaas kadibna nabiga dib badan ayuu geysay salawaatullaahi wa salaamu calayhi wa asaga iyo naagtiisa xataa heer waxay gaareen ay madheerta iyo waxyaalahaas qashimo intay soo jiidaan ay nabiga marka xaggiisa u keenaan ama wadada markuu marhayo qodxa iyo waxaas inuu dhigaan wuxuu intaas marka naxariista ku helay waa farxadii macna Nabi Maxamed uu ku farxay salawaatullaahi wa salaamu calayhi asoo wali nabi ahaan ugu farxin waa marka waxay yiraahdaan culimada Maxamed waa qof maalin kasta iyo xilli kasta Nabi Maxamed macnaha ku farxaya oo iimaan adduunkan uga tagay Maxamed dawa qofkaas fadli dheeraad ayuu leeyahay kuwii ka farxa nabigeena salawaatullaahi wa salaamu calayhi oo tacdiimiya xilli uu dhashay ama se waxa weeye nabiga ee diintiisa intaba tacdiimiya ilaahay ha naga dhigo nabigeena marka walaalayaal salawaatullaahi wa salaamu calayhi bishaan aan ku jirno sida qof kasta uu dareensan yahay waa bishii la dhalay nabigeena salawaatullaahi wa salaamu calayhi waxaa la dhalay bisha leeyahay Rabiicul Awwal waa bisha hadda aan ku jirno bishaan magaceeda waxa leeyahay Rabiicul Awwal oo sanadka 12 bilood weeye 12 kaas bilood mid kasta magac ay leedahay waxa weeye inta badan hadda dadka waalidiinta ma ay baraan ilmaha ma ay baraan oo waxa arkaysa ilmo badan xataa waxa weeye dad ahludiin macna waxa weeye ama se waxa weeye ahludiin bay sanaqoon laakiin waxa weeye aqoon bilahaas ama dadka waaweyn bay aqoon hadii leeyada kuwa taariikhda tiriyana qofka soo yaqaanaa marka waxa macnahaas wuxuu noqonayaa xoogaa bishaas waxa lagu xisaabsaday oo waxa weeye dad baa ugu soo dhacdhacaano marka ma ahan in markaas waxa weeye taariikhdaas miilaadi baa leeyahay taariikhdan hijri baa leeyahay taariikhda hijriga dadka in la baro oo bil kasta magaci la barashay muhiim ah oo ilmaha la barawa bishaan marka aan ku jirna waxa leeyahay Rabiicul Uula ama Rabiicul Awwal bishaan oo kale ayuu dhashay nabigeena salawaatullaahi wa salaamu calayhi waxa la dhalay nabigeena Ahmeen Isniin ayaa la dhalay sanadkii nabiga la dhalaan waxa la oran jiray Caamul Fiil ayaa la oran jiray marodiga macnaha sanadkiisii oo nin la Abraha la oran jiray ayaa Kacbada Ilaahay soo weeraray laakiin weerarkaas uma suurtagelin Kacbada markuu ku dhow yahay ayaa asaga ciidankiisa la halaagay marka sanadkaas waxa la oran jiray Caamul Fiil sanadkaas ayaa la weerar dhalay salawaatullaahi wa salaamu calayhi nabigeena salawaatullaahi wa salaamu calayhi asoo caloosha hooyadiis ku jira hooyadiis magaceeda waxa la oran jiray Aamina bint Wahab sida qof kasto macnaha waxa weeye uu garanayo ayaa aabihiis la oofsaday asoo aawoon ayuu dhashay kadibna waxa weeye hooyadii ayaa la oofsaday oo nabiga macnaha waxa weeye hooyada inta la oofsan hooyo ayaa nuujisay gabar Suwayba la oran jiray way nuujisay waxa laakiin waxa weeye inta badan nabigeena salawaatullaahi wa salaamu calayhi nuujiye waxa weeye Xalimatu Sacdiya gabadh la oran jiray kadib nabigeena 6 sano markuu gaaray waxa la oofsaday hooyadiis awal aaba ma u salahayn hooyana waa laga oofsaday wuxuu soo haraasay hooyo aaba midna aan lahayn waxa kafaalo qaaday awgiis ayaa kafaalo qaaday 8 sano markuu gaaray awowina waa la oofsaday waxa weeye 8 sano markuu gaaray marka awowii laga oofsaday waxa kafaalo qaaday adeerkiisa waa kafaalo qaaday ninkii la oran jiray Abu Daalib nabigeena salawaatullaahi wa salaamu calayhi 9 sano markuu gaaray waxa la yiraahdaa safar ayuu la galay adeerkii oo adeerku waxa aad buu u jeclaa wiilka yarka aad buu markaas u tacdiimin jiray inuu seexdo maahana waxa weeye ama dhinaciisa uu seexday Abu Daalib ma u seexan jirin
safar buu la galo marka shaam buu safar u aado wuu watay markay macnaha shaam ay tageen ayaa waxaa arkay nin la odhan jira Baxiira ayaa arkay Baxiirahaas marka wuxuu yidhi Abu Daalib wiilka yarka wadaa wuxuu yahay waa nabiga aakhiru zamaan weeye waa nabigii macnaha waxa weeye aakhiru zamaanka soo bixi lahayo nabiyullaahi Muxamed la odhan jiray waxaana ku dareemay geedaha iyo waxaas u sujuudahayaan oo salaamahayaan marka meeshaana wuxuu yahuud baa joogta yahuuduna nabiga Muxamed macnaha cadow way ku yihiin inuu soo bixi doonana macnaha kitaabii hore ayay ku ogaadeen marka waxaa dhici karta calaamaadka santay dareema inay dilaan wiilkaas yarka macnaha dib u celi waa kadib macnaha dib u celshay waxa weeye nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi magaalada Maka ayaa lagu soo celiyay kadib markuu gaaray 25 sano ayuu wuxuu la safray nin la oran jiray Maysarahaasna wuxuu adoon u ahaa gabadh la oran jiray Khadiija wa gabadhaas macnaha safar ay leedahay iyo macnaha wax ka waday oo Maysara uu waday kadib markay galeen magaalada Shaam oo safarkii markaas waxa weeye ay alaabtii soo iibiyeen dib ayay u soo laabteen markay dib u soo laabteenna Maysara markuu u yimid Khadiija waxyaalo badan buu sheegay wuxuu yiri intaan safar ku wada jirnaa aniga Maxamed Amiin ba xilligaas loo yaqaanay wuxuu yiri waxyaalo badan ayaa arkay xilliga qorraxda ay kulaanayso waxa weeye daruur baa hoosinaysa waa waxyaalaha la yiraahdo irhaasaadka oo ambiyada waxyaalaha ka dhaco khawaariqda dilaacinaya intaan rasuul laga dhigin baa waxa la yiraahdo irhaas wala si leeyahay marka waxyaalahaas ayuu uga sheekay gabadhaasi awalna waxa weeye rooyooyin iyo waxbay aragtay way dalabto marka waxay tiri nabi Muxamed macna nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxa ka dalabtay inuu guursado laba bilood ka bacay ayuu guursaday ayadana waxa la gabadhaasi waxay jirtay macna xilligaas 40 sano ay jirtay waa gabadha macna qof walba soo ogyahay muumina caruurtii nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo dhashay weeye ilaa waxa weeye caruurta 7 ayay ahaayeen marka waxa weeye hal mid maan inta ka taayay u dhashay gabadhaas ayaa nabigeena caruurtiisa u dhashay hooyo u ahayd في القدم محمد رسول الله شافع خيرة الرحمن محمد رسول الله حبيبه صاحب حبيب صاحب البرهان محمد رسول الله جليلي فاتح البلدان يا جليل فاتح البلدان محمد رسول الله ختم الانبياء ختام الأنبياء حقا محمد رسول الله ختام الأنبياء حقا محمد رسول الله محكم تنزيل محمد رسول الله قبري بلا تخوف أو تقري بلا تأخير محمد رسول الله لا يا خالق على يا خالق الخلق محمد رسول الله فسلمنا لما يدري سالمنا لما يجري محمد رسول الله الجورة أرجونا منك يا الله محمد رسول الله وضاق العالي في الأضواء وضاق العالي في الأضوار محمد رسول الله إلى عبدي يقول الله على عبدي يقول الله محمد رسول الله سما أيو سما ويزول العالي محمد رسول الله
بكاسجيني بكاسيانا محمد رسول الله بكاسجيني بكاس الجيل سريانا محمد رسول الله شربنا فشربنا وداد الله محمد رسول الله بكفي بكافي خير أستاذ محمد رسول الله سجنا وساقينا رسول الله محمد رسول الله كان وساقينا رسول الله محمد رسول الله ساقينا وساقينا رسول الله محمد رسول الله ساقينا رسول الله وساقينا رسول الله محمد رسول الله بكفي خيري وكان في أبي بكر محمد رسول الله فاروقي وفاروقي كذا عمر محمد رسول الله بنورين وذي نورين عثمان محمد رسول الله وسايدنا للمضر محمد رسول الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله محمد رسول الله على الهدى بدعيك على الهدى بدعيك محمد رسول الله أتانا أتانا بالهدى نورا محمد رسول الله دعانا حيث دعيك دعانا غيث دعيك محمد رسول الله عبد الرحمن صوفي، سحابة TV.